haddaad qiyaamaha ilowdo adduunuunu hortaada yaali waagu markuu beriyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunuun hadduu noqdo oo aad ilowdo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur. qofka mu'minkii markuu soo kaco wuxuu xasuustaa in jaanis kale la siiyey, waxaa mahadleh ilaaha nafta igu soo celiyey geeri dabadeed. min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadu allaha calayh faminhum man qadaa naxbah ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مؤمنين توحى كميدا با إلهي يدي كو الرميي وحا إلهي بلان لقاله وكل انتي يكو تشكي هايو وحبا بدلي إلهي وحينوت الماما يفلو صدقوا الله لكان خيرا له. هذا إدت كرون شيغا يضعوا خير بدنا الله كرون شيغا وحي سمينيا لئن صدقت الله لا يصد. haddaad ilaahay u run sheegto ilaahayna waa kuu run sheegayaa baa la yidhi. ilaahay ballankiisa haddaa oofisaan isna ballankiina waa idiin oofinaya. ilaahay baa wuxuu leeyay waman acrada can dikri, aniga xuskay ciddii ka jeesata fa ina lahu maciishatan danka. waxaynu salaad iyo cibaadiya wanaag uga tagnay, waxaynu islahayn wax kororhsada. ilaahayna wuxuu leeyahay nolol cidhiidhiyaan gelin, aakhirana waxaad iman doontaa baa ilaahay leeyihi adigoo indhala aan waxba arkayni. qaala rabbi lima xashartanii acma waqad kuntu basiira. ilaahu maxaad iisoo xaadirsay anigoo indhoola ah, waa indhaqabay adduunka marka joogee. qaala kadalika aatadka aayaatunaa fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa. jidka siraad baad adoo indhala isku soo maqiiqi, awalba jid khatar u ahaa, bal adoo indhala-aana ku darsada qiyaas. waxaa la yidhaahdaa aayaadkaygaa kuu yimi dabeetana waad ka tagta, maanta adna waa lagaa tegay baa la yidhi, waa lagu ilaabi. إلهي وحين لي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. هذا كنت وصنادان با إلهي لي جدك ربي، هذا كنت وصنان لهايين وحنو كورا بالله با إلهي لي بيبضن أوف، يعني برارية برواقا نكون نولا الله رابية أبارية مشكلة ده وحينو يتحامل toosnaantii baa laynaga waayay. haddaad toosnaan lahaydeen baa ilaahay leeyihi waa laydin badhaadhayn lahaa, biyaha waa ka dhargi lahaydeen. laakiin adduunina mar kastaba imtixaan yaha, haddana alla waxaynu noo sheegay marka layna dhargiyana ilaahay wuxuu yihi linaftinahum fiih, isaga laftiisu waa imtixaan kale. inta badan bini aadamka muslimka ahay imtixaanka dhibta ah wuu ku toobad keenaa, faqrigiisa u muuqda marka dhibtu ka qabsato yaa rabbi daa badata, dheragta si rabbiba waa la ilaabaa. inta badan labada imtixaan, imtixaanka dheragta khatarsan. imtixaanka dheragta kibir baa bilaabma iyo qooq iyo balacab iyo kibir oo dhan baa bilaabma. soomaalidana waa taqaaneenoo xataa colaadahooda iyo dagaaladooda markay abaartu dhacdo way isu nasan jireen, ya allah bay odhan jireen. marka gugu u da-ana rabshadaa bay bilaabi jireen. إلهي وحين ليه مركز لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. إنك إلهي حسكي سكتشيستا وحال مرن ولا قلن عذاب هذاك فوريتان كيس. أيها الأحبة تتكبر بأعمال صالحة سماية دبيتنا استصئي اسم قشي معاصي كبائر كبرية قاربا وضد الصحة هي kadibna raadkoodii dib u raacuna munaafiqnimo iyo ridda ku dhaca. idan ayuha alaxiba, nabigu calayhi salaatu wasalaam duul buu tilmaamay intay camal wanaagsan sameeyaan camalka ahlu janna siday u wadaan, marka dambun dib uga noqonayo camalka ahlu naarka samaynaya oo naarta lagu tuuri doono. dadka barba haddaad tidhahda war ilaahay waa gafuuru raxiim la soo taagay, insha allah ilaahay de waa gafuuru raxiim. waxay u badantay dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo, wuxuu kale de inagu muslimiin baynu nahay, garantii buu iska sitaa ah inaanu isagoo cadaab galaynin, inagu ilaan muslim baynu nahay. maba xumo intaad xumo samaysay haddii aad ilaahay xasuusato toobad keentay, ilaahay wuxuu leeyahy wan yaatihim caradun milu yaakuduuh. haddii mar labaad xaaraantii ay soo marto haddana waa samaynayaan baa ilahay yihi subxana wa tacaala. oo waa maxay? qofku hadduu xumo intuu sameeyey toobad keeno, toobad nasuuxa toobad keena la geray, ilaahay waa u dambi dhaaf. laakiin kani intuu wuxuu doono sameeyaa buu leeyahy insha allah ilaahay baa inoo dambi dhaafaya, damba kama leh.
nabi maxamed baa wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waxaa dhici doonta waqti yusbixu arajulu mu'mina ninku ay dhici doonto inuu waa baristo isagoo mu'mina wayumsi kaafira uu galabaysan doono isagoo kaafira galinka hore waa mu'min galinka dambana waa gaal cajab galinka hore waa mu'min oo ama salaad buu tukaday ama galinka dambana acmaal lagu gaaloobayo wada yani toosnaan dadkani ma laha wayusbixu kaafira wayumsi mu'mina waa barisanaya isagoo gaal haddana yani waa maxay islaamnimadaanu ku qumanaanaynin gaalnimadii iyo islaamnimadii buu dhex socdaa yabiicu diinahu bicaradin min addunya maxaa ku kalifay diintiisa ku gadanaya in yaroo adduunye abuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam diintiisii ayuu ku gadanayaa maxay adduun yar ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina itaqow idaa masahum طaa'ifu min الshayطaani tadakaruu faida hum mubsiruun kuwa alla ka cabsiga iyo qumanaanta lagu yaqaano waxaa arrinkoodu yahay haddii طaa'if min الshayطaan mid socdoo shayطaani hadduu soo maro khawaatir shayطaaniya waxaan fiicnaynaba hadday ku soo dhacaan tadakaruu ilaahay bay xasuustaan faida hum mubsiruun baa ilahay yihi sawaaba kuwii wax arkaya nabi maxamed baa wuxuu leeyahy ninka hamigiisa hami qura ka dhigo hamiga aakhire ka dhiga ilaahay noloshu wuu ururiya ninka hamigiisa hami adduunye ka dhigo adduun iyo xoogsi iyo shaqe iyo halkaa uun ku ururiya kaas buu nebigu yihi faraqa allahu shamlah ilaahay baa ka kala daadiya wajacala faqrahu bayna caynay indhahana faqri baa loo saaraa waa ka kala qubataa uno indhahana faqri baa u saaran walam yu'tihi min addunya ilaa maa kutiba lah adduunna kama helo intii loo qoray mooyaane wax kale ma helo ninkii aakhire hamigiisa ka dhigana ilaahay adduunkiisana waa u ururiya man jacala alhumuuma haman waaxida hama almacaad kafaahu allahu saa'ira humuumi ninka hamigiisa hame aakhire ka dhiga ilaahay baa humuumta kale kaga filaada ninkii humuumta adduunya isku tiro badayaana ilaahayna waa ku sii daaya dooxooyinka adduunyo miduu doontaba naftu ha kaga baxdee siduu u xiimayo unbay mid naftu kaga bixi doontaa haddaba ayuha alaxiba qof kastoo mu'mina oo dunida jooga umniyaadkiisa waxa uu rajaynaya laba shay baa ka mid ah cimri dheer iyo camal wanaagsan baynu jecelnay qofna ma jecla in la yidhaahdo nafta hadda ha lagaa qabto qof waliba in la ziyaadiyo bahashaasi oo aan hore loogu imanin buu jecelay isla markaa qof waliba wuxuu jecelaya camalkiisu inuu maxay waxaanuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi man طaala cumruhu waxasuna camaluh xadiiska tirmidi sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamay dadka waxa u khayr badan ninka cimrigiisu dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado haddaba ayuha alxiba garan maysid cimrigaagu inuu dheeraanayo inuu gaaban garan maysad khaatimadaadu waxay noqon doonto laakiin haddaa waxaad garanaysaa inaad jidkaa iska saaraatid oo ku toosnaatid lacalla adigoo qumanuunin mar naftu kaa baxde lacalla mucawiqaadka waxyaabaha dadka jidka weydaarayaana waa tiro badan yihin nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya maalmaha dambeeya ayaamu sabriga la yidhaahdo diinta qofka haysta uu kontan idinka idinla mida la ajar yahay baa layidhi waxaanu ku tilmaamayaa sidii nin dhuxul daba haystoo kale u ekaan doonaa yani waxaa looga dan leeyay dhuxusha daba la sheegay waxa weeyaan tacab iyo feejignaan tiro badan bay u baahantay ilaahayna qur-aanka wuxuu inagu leeyahy faاstaqiimuu ilayhi wastakfiruuh waryaadhan xagga rabbi u toosnaado faاstaqiimuu ilayh wastakfiruuh wixii dembi idinka dhacana ilaahay subxaanaه wa tacaala dembi dhaaf weydiista haddaba ayuha alaxiba nebi maxamed waxaa laga sheegay calayhi الsalaatu wasalaam inuu yidhaahdo shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa qabla اlmashiib wakti ciro anigoo aan gaadhin timan ciro aan badnayn baa nebiga ku yaala laakiin nebigu wuxuu leeyahay waxoogaaga kanna waxa iga soo saaray waxa i cireeyey huud iyo walaaladeed kuwaas baa i cireeyey buu nebigu leeyahay calayhi الsalaatu wasalaam qur-aanka uu sheegayaa qiyaame iyo waxa dambeeyaa u badan wuxuu ka warramaya waxa dambeeya aakhiro
dee waa maalinta ilaahay ku tilmaamay wildaanku kuwa dhashay inay ciroobayaan shayban inay noqonayaan. nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo inala hadlayo o inoo talinaya xadiis saxiix wuxuu ku tilmaamaya istaqiimu walan tuxsuu, toosnaada mana dhammaynaysaan buu nebigu leeyahy. yacni ma awoodaan inaa aydan in yarna weecweecan, laakiin toosnaada. waaclamuu waxaa ogaataan ana khayra acmaalikum الصلاة. أعماشينا waxa ugu fiican camal la sameeyo bacda tawxiid, salaad baa ugu fiican buu nebigu leeyahy. hadday salaadi kaa dayacanto diini kaa dayacantay ogsanow, istiqaamo waad ka fog tahay. hadday salaadiba kaa dayacanto istiqaamo iyo adiga in dheer baa idin dhaxaysa. aayaadkii uu nebigu lahaa, suuradduu lahaa way gaboojisaynaa. waxyaabuu ku tilmaamaya waxaa ka mida ilaahay subxaanaه wa tacaala faاstaqim kamaa umirta waman taaba ma maxaa ku jira waaqim الsalaaةa طarafay الnahaari wazulfa min alleyl ayaa ka mid ahay. waxaad samaysaan salaad baa u fiican baa rabbi ayuu nebigu leeyahy. walaa yuxaafidu calى اlwuduءi ilaa muؤmin, weysana ma dhowrtoo ma ilaaliyo qof mu'mina mooyaane. yani islaamnimada waxyaabaa ugu fiican waxaa ka mid ah inaan weysadu kaa jabto. hadday kaa jabto inaad dib u weysaysato, musqulba haddaad weysaysato, musqulba haddaad gashay inaad soo weysaysato, inaad daahir ahaataa. daba nebigu wuxuu inoo tilmaamayaa istaqiimuu walan tuxsuu, toosnaada mana dhammaynaysaan. xadiid labaadoo bukhaari iyo muslim uu ku yaala wuxuu nebigu yidhi sadiduu waqaaribuu waabshiruu. sadiduu asadaad waa toosnaanta lafteedii ama isaabada. waqaaribuuna almuqaaraba alqasd. maalan marka aad dhugtamayso, dhugtanka soo ma taqaanin rasaas ama waran, marka wax la wada liishaamayo la dhugtamayo maxaynu samaynaa? meel baa calaamad yar laynoo dhigaa ama waxbaa la dhigaa, dadkao dhan wuu toogtaa. laakiin mostly waxay u badan tahay dhibicda santarkaa qof iyo labunbay ugu dhacaysaa. hadday xataa kuugu dhacdo kan labaad waxaa laga yaabaa inaad dhinaciisa ku dhufato. nebigu wuxuuna leeyahy war waxaa samaysaan dhugtankaasi sadidu, marka hore ku day inaad halka toosan la heshid, dee xaggaa ha isaga tuurin waranka, ee meeshii lagu dhugtamaye la eego, ku dhaweena. xataa haddaad santarka la weydo maxay duleedkeeda hareeraheeda ha ku dhacdo. haddaad sidaa yeeshaan buu nebigu yihi dee bushaaraystana. markaasuu nebigu wuxuu leeyahy wاclamuu anahu lan yudkhila اljannata axada camaluhu. ogaadana nina camalkiisu inaanu janno geynin. yani jannada ilaahay waa ka qaalisantay xoogaa ka yaraynu samayna. jannada ilaahay waa ka weyn. الدنيا وعشرة أمثالها جهنميين كو ugu dambeeya janno soo gala ayaa waxay leeyihiin maxay adduunka iyo toban laabkii xagga hore ragii ka galay. markaa maxay leeyihiin acmaashaad shaqaysayna waa maxay 60 sano 50 sano aad waxoogaa wadwaday, idan wax gooya maaha, laakiin sabab bay u noqotaa. saxaabadu markay yidhaahdeen walaa anta ya rasuul allah, oo xataa adigu camalkaaguna miyaanu janno goonin, qaala walaa ana buu nebigu yidhi ilaa an yataqamadanii allahu bimakfiratin waraxma. ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo oo dembigayga dhaafo mooyaane anigana ma xataa camalkaygu ma gooy. waclamuu ana axabu alacmaal ila allahi adwamuhu wain qalla. laakiin waxay ogsoonaataan buu nebigu yidhi ilaahay agtiisa camal waxaa loogu jeceliyey kuwa la joogteeyo, istimraariyada, istiqaamada, habaadka, wixii ku sugma ayaa ilaahay agtiisa loogu jeceliyay haba yaraadee acmaashaadu inay joogta noqoto. qur-aanka 2 meeloodoo ka mid ah ayaa waxaa ku soo arooray dadka ammaan la ammaanayo iyo ajarka ay leeyihiin weynidiisa si laynoo jeclaysiiyo. oo waa maxay? ina aladiina qaaluu rabbuna allah, kuwa yidhaahda baa ilaahay yidhi allah noo rabbiya, rabbigayo waa alle. uma istaqaamuu baa ilaahay yidhi dabeetana ku toosnaada weedha allah ii rabbiya. macnay sheegaysaa, macnaha ku toosnaada baa ilaahay leeyihi. kuwaas malaa'ig baa ilaahay ku soo dejinaya, malaa'ikatu raxma,
ومحي leeyihiin marka nafta laga qabanayo laba shay baa qofka bini aadamka markuu dunida ka baxayo warwar ku haya meesha uu ka tagayaa warwar bay ku haysaa oo talow caruurtii iyo reerihii iyo dadkii iyo maxay noqon ilaa adduunku isku dhamma lehe maraad silaada shaqadii waa damaysay ee nafta ka qabta ma jirto mar kasta oo wuxuu baad silaada war waxba dayacane talow siday noqon kuwani waxaad kaloo ka warwaraysaa oo kaaga sii daran war talow maxaa kaa horeeya war waxaad samaynaysaa alla ma ka aqbal war ma kuwa naartaad noqon mise kuwa jannadaad noqon xaalkaas sidoo noqon warwar baa kugu jira ilaahay wuxuu leeyahay dadkii toosnaan jiray malaa'ig baa u imanaysa oo bushaareynaysa maxaa loogu bushaareynaya alla takhafu wala tahzanu ha cabsanina oo waxa idinka horeeya ka cabsanina baa leeyahay kuwa nabadgala ka mid ha tiiraanyoonin oo wixii aad ka timi ha ka murugoonin baa leeyahay rabbigood bay leeyihiin وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنة ندين بلن قاضي كبشارست في سورة الحقافنا سيدو كلبا إلهي لي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا كو يري الله نور ربي كتو سنادي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإلهي عبسي كركوضا مها ووحا صوص عدك مع عبسانيا ولا هم يحزنون مرقية تيران ينما هيسو أو وحي كتغي كمرغون مايا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون بإلهي كواسي وغير جنة ونكوا ريا يضلوا أبا المرينيو وحي أيسو عمل فامريين درادت سببتي أيها الأحبة استقامت وددان لكن كوحي اللي فاستقم كما أمرت سيدي الغفري هاي علماء هذا مركا ولا تتبع أهواءهم بآياتك لنا إلهي لي معناه دوا محي استقامته واتباعه ابتداع معه توصنوه وحلقوا توصن هذا وحي ربي كفري ووحى ربي كفري وامحي دين تلقى الرادية هاي سؤالان ان توصنوه بدعية وحصوبها صميسانه هاي سؤالان عمل كبير ورنتي النبي محمد سمين شرير كما بدين كرتيد ميو نقول شرا عند النبي محمد كبدين كرتا ماي اذا انت سيبانه غاري كرين محادين كلا راضعين dadka barbaaxay ama bidca qaarba xasana qaarba sayyi bararta hay noo badambayso xasana iyo sayyiadeeduba kullayba tii nabi maxamed soo kama fadli badna tiina ma dhamayn karayno saadaraaded bal marka taas oo dhamayso aan baabka kale isweydiino marka taas oo dhamayso aan baabka kale u nimaadayo su'aashiisa saddex saxaabi ayaa guriyihii nabiga tagay markaasay waraysteen maxaa camal uu nabigu qaban jiray markaasaa loo sheegay wabay la yaraatay intii nabi maxamed haddana si kale u fakareen waxay yidhaahdeen war nabi maxamed isaga ilaahay baa dembigiisii horiya kiisii dambaba dhaafay sawdaa walba dembi ma lahayn inagu de waa dambaabnaaye mar haddaynu dambaabno waa logic ba la ciyaaraya mar haddaynu dambaabno de intii nabi maxamed waa inaynu ka badinaa isagu ma dambaabin intaana uu sameeyey haddaba inaga dambaa inoo dheere inagu waa inaynu ka badinaa maxay intii uu samayn jiray oo maxaynu samayn mid baa dabeete wuxuu yidhi isaga ilaahay dembigiisii hor iyo kiisii dambaba uu dhaafay inaga waxba garan maynee anigu habeenba seexan maayo waan taagnaanun buu yidhi salaad un baan ku jiri kii kale wuxuu yidhi aniguna cunaba waan iska dhaaf waan soomanaan soonun baan wadi midi salaadun baan wadi buu leeyahy midina wuxuu leeyahay maxay soonun baan wadi midina wuxuu yidhi war dumarkan iyo caruurtan iyo waa waxan waxa diintaba dadka ka mashquuliyeen guur naageed baan anigu waan dhaafi buu yidhi zaahid baan iska noqon haweenintu ka dheeraado cibaado unu banbaxa weeyaan dabeetana nabigaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu nimankii buu u yeedhay wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wakada wakada war ma idinkaa nimankii waxaa sheegay ma idinkaa sidaa iyo sidaa yidhi haaba yidhahdeen wuxuu ku yidhi markaa ama wallah inii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah ilaahay baan ku dhaartee buu yidhi anigaa ilaahay idinku alla ka cabsi badan idinkuna taqwo badan alkhashya iyo wataqwa
أنا إذنكو الله كعبس بدن أو إذنكو دور سنام بدن نار وحلقة دور صدو أنا إذنكو بدن بالنبي لي رواية إمام أحمد نوحي تلماميسا والله إني لأعلمكم بالله أنا الله إذنكو علم بدن وأتقاكم له قلبا إذن لبدا الروايات بالتقوى ويشيغين مدنا علم يشيغتين مدنا خشية يشيغتين لكن خشية دي علم قنوة وذا الصعدان وإلهي بقرآن ككويري إنما يخشى الله من عباده العلماء اللوحن بابا عبسدا نبتا كعبسدا كوا محي إلهي أقوان طوله لأنن إلهي قرر يبا إلهي كبغى إنما أن ربي يويني دي سي عذاب كي سي نارتي سبا قررنا إنها بس يوغيني تما عبسدا لكنك ربي أك يا أوديس وعبصا سادراد دوح النبي كله ورانا إلهي إذنكو أقوام بدن إذنكو خشية بدن إذنكو عبس بدن إذنكو لور سنام بدن هذا نبي النبي ويلي أنا وان صوما وانا عفورا وان سيحدا وانا تكدا دمر كان وان قرسدا ورنكي تشيت كيغا كوعدو أنا كيغا ما متهدو نبي ولي فمن رغب عن سنتي فليس مني أنا ودادا يدي ما هيسيد ويا حديث كان محانو كان استقامته إناني معناه دوهين وحصب إني نسكبل بلونو نسرنا عبادة بدي لكن طريقي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كبدي تتكبرنا كون وكوي غلوي كل عين تتكبرنا عكسك كل عين تتكبرنا هذا ولا إلهي وغفور رحيم لسوتاني إن شاء الله إلهي هو غفور رحيم حيو بدنتي dadku intuu wuxuu doono iska sameeyo wuxuu kale inagu muslimiin bay naayeen garantii buu iska sitaa inaan soo cadaab galaynin inagu ilaa muslim baynu nahay ayaha la xibba labada dhanna ma banaana istiqaamadu waxa weeyaan xaqaana inaanad uga dhicin oo inta qulubu kugu dhaco diintaanad ku xad gudbin xaqana inaanad u dhicino inta diintaba sii dayso inaanad iska taagnaan oo sayughfaru lana labada midna inaanad marina inaad marto maxay jidka quman استقامة معناه ما هدم ببن عيمه نبي محمد باوحلي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون آدم هو اللي بيوقفه ومن طبعنا قفك وين قدعيه لكن كو وقفك كدع وحوفي عن بالليلي هو التوبة الضبوضة إلهي بمحرين يلي فاستقيموا إليه محاكو حقا واستغفروه بإلهي فاستقيموا إليه واستغفروه كوكو من هذا جدك ربي وهديبه وحيد كدع دعانا محي واستغفروه معاذ بن جبل مركو لدردار بي نبيكم حوكو يري اتق الله حيثما كنت ورميل كستو جوكتور ربي كعبسو هديبه وحكا حمادانا واتبع السيئة الحسنة تمحوها ونك دبقي فما حكا دعايا مصحيسه إلهي وحولي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون هو الله كعبسك يقول منانتا لغو يقانا وحا أرقودو يي هذه طائف من الشيطان متسعدو الشيطاني هدو صومرو خواطر شيطانية وحان في عينين بها هديكو صور دعان تذكروا إلهي بحصوصتان فإذا هم مبصرون بإلهي سواب قوية وحركية أنصركم منه إننا توصلنا إننا دنينو بجرته فوائد هذا وحكم ده نبي محمد حولي احفظ الله يحفظك إلهي إلالية جدك سيدينتي سيلالية محا كان رتب مية أدينا إلهي باكو إلالينا هذا صلاة إلالي سو شقا لقاقا إريو إلهي باكو إلالينا يو شقا كفي عني خير كفي عن كسين هذا تستر هذا صلاة دي شقا صلاة دي شقا دائما شقada laga tagi karaya hadaa tiraado hadaa tan rabbi dayacda ilaahina waa ku dayacaya xabka keeni maysid meesha soo siinayso asalku waxa weeyaan ilaahay wuxuu ku ballan qaaday hadaa isaga ilaaliso ihfad illah abu nabi maxamed kulay war ilaahay ilaali natiijadu waa maxay yahfadka allah ilaahay baa ku ilaalinaysa waad ka helaysaa waxa uu nabigu ina leeyahay man salla al-fajr ninka salaada subax tukada رواية مسلم ابن ماجه محولي من صلى الصبح في جماعة صلاة الصبح نك جماعة كنت كذا فهو في ذمة الله بنبو
kaasi wuxuu ku jiraa ilaahay ballaki insurance-ki nin salaad subax jamaac ku soo tukaday haddaad dhibdhibto balaaya kugu dhacaysa iska ilaali waa insurance-ka rabbi cid ku jirta haddaad ku warwareegto waa mushkilad idan haddaad ilaahay ilaalisay oo salaad subax intaad timin jamaac tukatay ilaahay dimadii baad ku jirtaa cidina wax kuma yeeli karto cabsan la gal walaa cid kale caruur baynu u baqaynaa iyo kuwa kan war haddaad adigu qumanaato ilaahay tiisa hayso ilaahayna ubadka wuu ku xifdiyey ilaahay fii suurati kahf muxuu inoogaga warramay nin dhintay oo saalix ahaa ayaa ilaahay nebi iyo awliyadiisa mid ka mid a isugu soo daray si ay caruurtaa kansigooda yare aan uga lumina loo ilaaliyo khidir baa la soo adeegay markaasaa nebi muusena lagu soo daray dabeetana darbigii dumayey bay u yimaadeenoo way dhiseen laba agoona hantidood baa ugu jirtay oo aabahood dhintay waa u dhiseen markuu ka warramayey khidir ee ilaahay inooga warramaya muxuu ku tilmaamay wa kaana abuuhumaa saalixa baa la yidhi maxaa loo ilaaliyay labada tan aabbahood baa ahaa baa la yidhi maxay saalix ahaa haddaad adigu saalix tahay ha warwarin haddaad si adigu warwareega tahay kuwaana khatar ba u soo hoyatay haddaad adba warwareegayso kuwaana khatar ba u soo hoyatay laakiin salaaxaagu salaaxul aabaa ayaa ilaahay ku xifdiyaa maxay abnaada rabbi ku xifdinaya idan haddaynu toosnaano akhriya adduunba waynu liibaanaynaa warku hadduu bato intii hor idin lowsiinaya war badanina wuu ii hadhay laakiin dhowr kelmadood baan idinku soo koobaya ilahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegayaa wixii inugu kaalmayn lahaa saynu u toosnaan lahayd aayaadkaasi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadqaw inahu bima tacmaluuna basiir ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين أوكا أيضا سورة هود اسكو حيقا هداد أخرى أي تفسيرات كأكتو بعد ليس أسبابتا إلهي وكاكور رمي الوطوسناتا يضو إرى يوكوهم بالدين شيئا إذا كانت المضمرة ككوات وفاستقم كما أمرت أي الاتباع إناد بدعة كل عناد توسناتي كاللباد ومن تاب معك إناد تسكد ديديد مسلمين تيناد دوكستيد شيطان ورابوه ورابو نبي الذئب إنما يأكل الذئب من الغنم الغاسية إذن بيئة الصالحة إناد تسكد ديديد إناد تكون ولا كرتي دادك ونكسن راعدي ميلها ونكسن فريستي ميلها فردك دور يقولون كسكي تكتب مساجد عمرتي ما أنت بقى مساجد كفر لدانا إلهي دسوها قاتشي إمسا أكتينا طبعا ومقاحيوك الشاكيني ميلا خير لهي كصدحات آيات وكرم ورد ومن تاب معك توبة دينا بتستي دي استغفارت نبي محمد وحولي مالنتي أكثر من 70 مرة أو 100 مرة من توبتك أنا وعدم الطغيان إن حد قد بين اتباعنا تكون قمت وتصيب إيه غلو منا ينات كل إنسان صوت المام إنه بما تعملون بصير بإلهي إنه بما تعملون بصير المراقبة إن دوغاتي وحك استوات سمينيسو إلهي نكو أركي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا عدم الركون إلى الظلم انت واحد ظلمين سينادو هيلني مدحوين إن هذاك قبيلك هدادو هيلسو ظلم قوضة قارس تدك واحد دي لي هدادو هيلسو دي الكوضة كقيبتي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار ما إلهي وارهوا عننا قوة ظلم السمينية والنارية إذن هلالي أقم الصلاة طرف صلاة دقوقة انت وحرعوا إلهي لي صبرا واصبروا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وأيو وضد مركز كنت وصنعته قد حبضا بعض لكل لكن واحد باهنتي محي سأدو صغنته إن تصبر تابادو باهنتي إلهي سبحانه وتعالى هدنا وكسي ورمي آياتك كحيقا
qiyaame iyo waxa dhici doona geerida xasuusno haddaad geerida xasuusantay waa toosnaa way geerida garan maysid gaariga ka horeeya inuu shilku gal tareel inuu kaaga kormari garan maysid geerida xasuusno qiyaamuhu iyo kaalibni haddaad qiyaamaha ilowdo adduununu hortaada yaalo waagu markuu bariyo barnaamijkaad la soo kacdaa inuu yahay adduunun hadduu noqdo waad ilowdo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur qofka mu'minkii markuu soo kaco wuxuu xasuustaa in jaanis kale la siiyey waxaa mahad leh ilaaha naftaygu soo celiyey geeri dabadeed isaguna loo noqonayo wa ilayhi nushuur qiyaamaha ilaabina aayadku waxay kaloo ina farayaan waxyaabaha lagu toosnaaday asbaabta waxaa ka mid ah alamru bilmacruufi wanahyu cani lmunkar cadaraad badan oo hor duuban waa helaysaan oo asbaab alistiqaama ah ama asbaab athabaati cala diin labaduba iyagoo duuban bay ku jiraan nadka ilaahay waxaan ka baraya subxaanahu watacaala annaga iyo idinkaba dembigeenna inuu dhaafo dembigii waalidkeen dhaafo intaynu ka naxayna dembigooda inuu dhaafo ubadka iyo caruura iyo haweenkeen ilaahay inoo toosiyo dalkeen iyo dadkeenna dad quman in alla ka dhigo dantooda aakhira iyo adduunba in rabbi tusiyo kuwii toosnaada ee jidka toosan ku toosnaada in rabbi inaga yeelo dariiqa toosnida in rabbi ina xasuusiyo iyo jidka lagu toosnaanayo inuu rabbi kuwa diinta ku sugma inaga yeelo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa ku ducaysanaya ilaahu qalbigayga diinta ku sugay inta rabbi diinta qalbigooda ku sugay in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin